madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ku joogay wadanka turkiga ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho. imaanshaha cabdicasiis laftagareen ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili lagu wado in muqdisho beri uu ka furmo shirkii uu ku baaqay madaxweyne farmaajo oo arrimaha doorashada looga hadlayo, kaas oo ay ka qaybgalayaan madaxweynaha wakhtiga ka idlaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka. agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxtooyada koonfur galbeed ayaa warbaahinta uga waramay safarka muqdisho uu ku yimid madaxweyne laftagareen iyo ujeedkiisa. bismillahi rahmaani rahiim. maanta way taariikhdu tahay 21 maars 2020 madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa soo gaaray magaalada muqdisho asagoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa dalka Turkiga safar shaqo ugu maqnaa. madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha Aden International Airport ku soo dhaweeyay golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira golaha wasiirada xildhibaanada iyo xildhibaanada aqalka sare iyo sidoo kale waxaa garoonka diyaaradaha Aden Cabdi ku soo dhaweeyay madaxweyne cabdicasiis xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo marti sharaf kale. sidoo kale madaxweyne cabdicasiis wuxuu halkaan u yimid ka qaybgalka shirka loo madalsan yahay maalinta beri inuu ka furmo magaalada muqdisho oo uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد يحيى جينو، warbaahinta Nation، مقدشو.